بسم الله الرحمن الرحيم arrintaas horta Shabeelle waxaa lagu dhisay heshiis iyo gorgortan iyo negotiated settlement inkastoo weliba sida aad ka warqabtaan xawaale miisaankiisii uusan Shabeelle kana qayb gelin na taageerin sida hadda ay wax yihiin inuu xawaadle oo ahay madaxweynaha ka noqdo Shabeelle waa gentleman's agreement sida 4.5 oo gentleman's agreement u yahay asagoo aan dastuurka ku qorneen iyo u yahay weliba documentigii lagu kala saxiixday igad horteeda aniga waan hayaa oo xawaale la siiyey oo ahay madaxweynaha laakiin dastuurkana kuma qorna sida hadda la yahay haddii la sii ahaadane wax diidaa male wax ka hor istaagaana male in qof kale inay soo istaagto wax kastaahu waxaa saldhig u ah wax kastaahu waxay ka bilowdaan sida adinka rabitaankiina aad u operationalize garaysiin qof iska jiifa oo muxuu ahay gurigiisa iska jiifa wallahi lama soo dhawaa karo hadda waxay noqonaysaa abeesadii iyo ureyskii muxuu ahay aroos rabay noqonaysaa nin walba arooskii mataqaana oo dowraha meeshaas banaankaas talaba 13 xildhibaan oo xawaali ku leeyahay muxuu ahay baarlamaanka Shabeelle 13% hala muxuu ahay micno kale iyo lagu keeno qoysina la siinaa la yiraahdo 14 kaas waa Soomaa 14 maxay ka goysaa marka Hirshabeelle maxay ka goysaa in Hirshabeelle markii teeramkaanu dhamaado baarlamaanka labaad la dhiso oo muxuu ahay qoladan ajnabiga oo maalin elections iyo ka hadlayna ayaan waxaan ku yiri baarlamaanku waa inuu eekaado baarlamaanku waa inuu shicibku u ekaado haddii qole ay ka tahay 40% waa inay more or less ay u soo dhawaato 45 waa noqon kartaa 35 waa noqon kartaa baarlamaanka Hirshabeelle eka shicibka Hirshabeelle eka in loo ekaysiiyo waxay ku xiran tahay political mataqaana settlement kale dib la isugu noqdo gaar ahaan abgaali xawaale intay isarkaan ummadda kale tane waxay ku heshiiyeen ka gadaan meeshaasayna taalaa haddii halkaas ay taalo u dhaaftaanne maalin walba muxuu ahay qaylo iyo annagaa iskale iyo melihidiinaan ku jiraynaa laakiin muxuu ahay inta hadda talada aad wax ku leedihiin inta hadda muxuu ahay grievanceskiina iyo cabashadiina loo dhiga nugul yahay inta hadda fursado ay jirto wax lagu sixi karo haddii la sixi waayo hadda waa nin walba meesha uga tegaya looga tegay mudane madaxweyne markaan aragno dabaryarida Hirshabeelle iyo meelaha iyo waxqabadka adiga laga rajeynayo oo si kastaba ku dhacday ayna dhicin waxaan isku sheegnaa ayatullahayga dawladda inuu yahay Cali Guudlaawe ee ku xigeenkaaga taas ma saxa سؤالها وعارضك تاغو ما استغفر الله horta walaalayaalow marka kaftanka laga saaro horta ummadu markay jabto oo baabado oo dhulka taalo waxa lagu gartaa cabaad iyo dad kale oo la maagmaago waxa aniga imaaraadkan waxaan ku noolaa waqti fara badan xaajira kaftan dhahaya haddii saxaraha dabaylo ka soo kacdo oo ay magaalada marmaray ay saxaraha dabaylo ay qaadaan waxay dhahaanaa la yiraahdo carabta wallahi bilaa Israa'iila mataqaana waxaan Israa'iila dabada uga jirto calaamadaha oo mataqaana dhulka in la yaalo waxa kamid ah intaan tabarteeni iyo xoogeeni isla heli weynay ayaa waxay dantu nagu kaliftay inaan mataqaana meelo kale la aadno horta dad annaga muxuu ahay muslim oo sunni aan nahay ayatullah horta shiicadan ka maqli jirnay horta shiica ma niin ninkaas odaga haddaan specifically
inkastoo qof naga maqan inaan wax ka sheega laga fiican yahay. ninkaas hirshabeelle waxaa saldhig u ahaa abgaal iyo xawaadle markii la dhisay. cali guudlaawe khayr allaha siiyo waa hogaamiyaha aan muran ka taagnayn oo laga daba hadal oo blogga abgaal wuxuu ka yiraahaa socda, wuxuu yiraahaa dhaqaaqa. dadka kaleetana markay cid raacayaan dadka isku dubaridanay raacaan ma dadka kala daadsan ma raacaan. waa kow wuxuu ahaa guddoomiyihii shabeellada dhexe oo hirshabeelle lagu dul dhisay, oo asoo guddoomiyaha gobolka riski qaatay oo ka tanaasulay oo muxuu ahay saas hirshabeelle ku dhisantay. aniga markaan muxuu ahay tii hore oo cali cusable iyo markii la mooday aniga markaan imid qof walbaahu strategy uu leeyahay, qof walbaahu muxuu ahay vision uu leeyahay, qof kasta wuxuu leeyahay game plan. aniga waxa ii soo baxday xaaladda muxuu hirshabeelle markay saan tahay, markaasna culays fara badan oo dowladda xaggeeda uu jiray. sida keliya oo hirshabeelle ay survival ku samayn kartaa waxa waaye aniga iyo madaxweyne ku-xigeenku iga hoos aan wax u dhiibo oo aan empower gareeyo oo ay shaqeeyaan. dadkii oo waagii oo aan hay-adaha u shaqayn jiray yaqiina waa og yihiin, dadkii muxuu ahay ka dambeeyey waa og yihiin, dadkii ila shaqayn jiray oo hay-adaha igala shaqayn jiray dadka Soomaaliya hadda ugu lacagta badanna ama ugu awoodda badan ay ku jiraan. waxaan aaminsanahay qofka ila shaqeeya inaad empower gareeyo. ninkaas shakhsiyadiisa waa nin fiican, waa nin wanaagsan, waa nin nabadoona, waa nin dadku jecel yihiin, nin xawaalo necab maaha. niman yahow meeshaas idinkama jirtee intaad shaydaanka iska naartaan muxuu ahay lugaha isku duuda. midda kale hirshabeelle hadday muxuu ahay sida maamulada qaarkood ay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku ay iska qabsadeen oo iska xagteen, ma idila tahay maanta meeshii joogtay inay soo gaari lahayd? marka ninkaas odogaa dembiyowna idinka raacin. waxa meeshaan idinka maqan adinka idinka maqan yihiin, asiga uguma maqno. waxa meeshaan idinka maqan intaa isku lugud duwataan ka soo doonta. maasha allah. mudane madaxweyne, waxaad u soo qabatay gobolka ayaa lagugu doortay mise waxaad aaminsan tahay in lacagtaada isku soo saartay sida ayaamahanba siyaasiyiinta xawaadle u soo banbaxaan? maasha allah. horta alxamdulilahi rabbilcaalamiin. aniga labadan gobol oo shabeellada dhexe iyo hiiraan waxaan ka shaqaynayaa 30 sano. magaalada beledweyne aniga waxaan imid bishii May 1991 ayadoo magaalada 60% ay guban tahay. inta hadda lagu daray iyo iska dhaaf intii magaaladii hore lama galaay ilaa iyo muxuu ahay irid aamin webiga waxa la jeedo dhan ay carradu ay madowdahay gubatay, magaaladu aysan muxuu ahay aysan jirin. barnaamijkii aan ka bilownay beledweyne waxay ahayd adduunka dhan waa research gareyn kartiin. meeshii ugu horreysay oo ICRC ay raashin diyaarad ku geyso ayay ahayd. magaaladan 92 iyo 93 hay-adda ICRC oo aniga markaas aan mas-uul ka ahaa $5 milyan ay bishii beledweyne ku qarash gareyn jirtay. boosaasi iyo garowe beledweyne dollarka loo soo doonan jiray oo ka raqiisanaa waddanka intiisa kale. muxuu ahay matooradii beledweyne waagaas aan saarnay waa matoorada dadku ay barteen oo kuwo kale ku dareen oo khudaarta iyo laga dhoofiyo boosaasi lagu geeyo. aniga aqoonta aan u leeyahay labadan gobol iyo xiriirka aan ku lahay iyo dadku si ii arkayena laygu doortay. weli waxaan idiin sheegaa dadka yimid muxuu ahay ninka ugu lacag yar aniga oo lacag ugu yar bixiya anigoo ahay waa weydii kartiin.
aniga mandate-kan la ii dhiibay dadkaa ii dhiibay gaar ahaan dadka aan anigu ka dhashay ood adigu ka mid tihiina aniga ii dhiibay oo magacoodaan meesha ku tegey ayadoo muxuu ahaay 14 xildhibaan ay xawaadla yihiin xildhibaanada jooga halhalaa warsi kartiin ayaan 10 jeer intaan isugu yeeraan waxayna 13 soo mutihiin baarlamaanka soo 10 jeer ma idinku soo jibaarmo 13 naaso haddaad mooshin iga keentiin intaan ku dhaqaaqa dadka kale xataa ma waxba kama weydiinayo aniga meeshaan waxaan aaminsanahay waa ku caraafanahay waa ku cadaabanahay xiise uma qabo ma rabo habbi kuma ihi 100 shaqo ka fiicanaan haystaa waxa kaliyaho intaan aan ku soo gaaray war nin horaa hortaa dhulka lagu jiiday oo si aan dadnimadu aysan ogolayna xilka looga qaaday adiga yaa lagu dhihin war ninkii asigana sidii oo kala la yeelay ama waaba ka cararay intaas horta Hirshabelle igu hayso ogeel xajalo kale iga mahayso waa garanay mudane madaxweyne dadka aad madaxda aad u magacaabayso degmooyinka soo dhaqankaas oo aan la tashiga lahayn oo dadka cidda ay rabaan iyo cidda wax u qabanaysa aan lagala tashanayn oo la kor saarayo soo ma moodo dhaqan laga fiican yahay oo maamul ahaan looga fiican yahay dhaqan laga fiican yahay ma dhaqan xun waay laakiin sababtii ku dhacday ma weydiisiin taas noo gal fiiri Hirshabelle 2 sano iyo bar xildhibaan la isku kabkabay oo muxuu ahaa qabaa'il ah ayuu ka kooban yahay gudoomiye ilaahay xalkiisa og yahay gudoomiyaha looga dhigay maalin walba waxaan xagta aan dhulka aan ka dhigi weyno 20 xildhibaan oo isu soo bahaysatay gudoomiye hebel nooga qaad meesha gudoomiye hebel nooga qaad dadka aad sheegaysiin oo aan magacaabay 60% kamida maba arag weligay maba aqaan baxta meeshaan waxaa ka jiro dysfunction kaasna waxaa sabab u ah dadkii la rabay inay gacanta la galaan qaarna ka faanayaan qaarna mucaaradayaan qaarna xasdaayaan qaarna ku qoslayaan qaarna dan aysan kala ahayn annaguna hadba maalinkaas meeshay ku bariso birihii fiicnaa doontaa bal kuday saasaan anagu wax ku wadnaa bisaraha haddaa idii wada okay mudane madaxweyne soomaalida waxay tiraahdaa dhamiyaa waalan dhargaana ka sii daran maadaama hadda xilli teeram aad madaxweyne ahayd saas ma ku tegaysaa mase waad soo sharaxaysaa oo waala damise wallahi niyo warkayga meesha kaa maray ma garanayo intii hadda aan isu sheegnay su'aashaas inay weydiiso baba filimba namayo meeshaan taladeedu intaysaan tahay aniguna dan ka melihi qof kaloo yimaadaahuna ka ceeshi maa ummadaanuna dhibaatadaasay ku jiraysaa waxaad yeeshaan intaad talada isla heshaan meeshaan wax laga dhergaahu ma yaaliin wax la dhibdhibiyaahuna ma yaaliin meeshaan caraaf lagu darayaa yaal ragga hadda muxuu ahay ii sheeg aan arkaayo waa rabaa dhahayo ama adinka guud ahaan hal shay aan idin leeyahay si taladiinu ay idinku soo aruurto aniga caawatii ilaahay hadday ii timaado maxaad samayn lahaydaan xawaadlow caawat bini aadanaan ahay nafaan leh waa neefsanaa waaba dhintabo talada meel idii taal oo aad leedihiin ninkaas hadduu meesha dhinto saas iyo saasaan yeelaynaa meel ma idii taal marka saas idileeyahay hadday meel idii taal waxaa suurtagal ah barnaamijkaas inaad dhahdaan anoo nool warnigo barnaamijkaanaa meel noo yaala ninkii fuli lahayna noo lama eg 4 faataxan kuu maraynaa iska bax waa suurtagal waxaa suurtagala inaad intaad ii keentaan aad dhahdaan warnigo nin oo caraafanaad tahay waa kaa wareertee annagaa tala ku haynee taladaan waa tana qaada haddana suurtagal ah waxaa suurtagal ah taladaanu dagaalay u baahan tahay ama dawlad lala diriro ama dad kale lala diriro adiguna nin dagaalama uma ekide
mid muxuu ahay indhaha dhiigga ka bixinaha aan keenaynaa adigu xoogaa dhinac ka mar waxaan uga jeedaa tala isla hela markaad tala isla heshaan oo taladaas isku qancisaan aqoonaad leedihiin xoolaad haysatiin meel nabada had joogtiin waa laydin dhegaystaa dad soo dira inta imaada odayaasha dhaqanka arka dadka shiriya ugaaska arka dowladda dhexe arka xildhibaanada arka tala keena markaa taladaas keentaan ama anaa fulinaho haddii bidika anoo garab lahaan fulina ama mid idhaamaa imaanaho fulinaaye bahashu meeshay ka tulmil adahay talada waaya talanimayow keena aad ayaad u mahadsantahay mudan madaxweyne ugu dambayntii tolkaaga maxaad ka codsan lahayd ama maxaad u soo jeedin lahayd aad ka sugi lahayd hal shay aan usoo jeedinaa maba badnaba aniga quusaan joogaa waxaan aaminsanahay dadkaan masiibaa ku dhacday masiibadana meesha ka haysato ma aqaan nin oo muxuu ah ila shaqeeyo saaxiibana aan nahay makaraan la yidhaha maanta wuxuu yidhi niyow ciddaan in loo duceeyo waa ciddaan qur'aan loo akriyo la duceeyo waa inuu ducadaas abaabul waxaan inuu ducadii yaaban iska keeni la'aanaaba tala afar ka jeer ayaan isku daynay inaan dadka isu keenno ajende kale aan laga hadlin war waxaan dusha idinka fuula oo bustahaan idin saaran oo taladiina ay isla heli weyseen oo mushkilada in ilaahay idinka dulqaado ilaahay u noqdo ducaysta reer hebel la ducaysan maynaa laga bilaabo anaga reer hebel maa ducaysanayn anaga reer hebel seen ku ducaysanaynaa waxaa kale intaa iska dhaaftaan ummaddan masiibaa ku dhacday soo tashada dad odayaala soo abaabula xoolo waa la helaa ku nooloo socdaa buuxa jeebkay ku jirtaa la waayi maayo ummaddan inay ducaysato ilaahay u noqoto ka soo shaqeeya aad iyo aad aad umahadsan tahay mudan madaxweyne waxaa inoo soo gabagabaynayo see u kala